bal ila dhageyso qof walba oo maanta xumaan faafinayo qisadan ayaa waxay tahay wiil muslim ah oo iska dhalinyarada kamid ah ayaa wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay internetka marka wuxuu soo saari jiray sawiranta xunxun wuxuu xiriir aad iyo aad u la yeeshay shirkadahan sawiranta xun faafiya saaxiibadii markii uu la fadhiistay way weydiin jireen xakiba ka keentay sawiradan yani ma inoo soo dirtid noo sheeg website-kee baad ka soo qaadataa ilaa oo aakhirkii dambe uu ku yiri lacagta iska keena aniga ayaana emailkiina idigu soo dirayo mid walba wuxuu siiyay emailkiisa emailka saaxiibkii emailka walaalkii bas wiilkii shirkadii ayuu la heshiiyey lacagtii ayuu contract kula galay dabadeedna emailadii dadkii uu ka qorqoray ayuu automatic ugu program garay halkaasoo wixii asiga u soo dhaca ay automatic u aadayiin inta email oo loo soo qoray saaxiibadii markuu la soo fadhiistay way la sheekaysay jireen ma sha Allah hada wiigan sawiranta xunxun aad ay u fiicnaayeen dadkii de wadada iska qaafilsan 6 bilood markuu saas ku waday ayuu shil baabuur ku dhintay wiilkii shil baabuur ayuu ku dhintay wala soo duugay wala uu soo kala tagay meeshii saaxiibkii oo qishada ka sheekeynaya wuxuu dhahay isbuuci oo dhintay markuu dhintay kadib ayaa waxa ii soo dhaceen message kaas oo asiga ii soo diray oo sawiradii xun markaas ayaan wuxuu yiri waxaan is yiri maya message kan mar hore ayuu soo diray laga yaabaa adi ayaana telefoonka furin waan iska dileed ayuu yiri waxa ahaayeen sawiran qurune oo kuwii hore camal bas wiigi labaad ayaa haddana waxa ii soo dhacay sawiran kale cusub oo xumaan markaas ayaan waxaan ogaaday ayuu yiri in uu sawiranta automatic uu emailada ugu xiray qabriga asiga oo ku jiro ayuu xumaan soo diray subhanallah ogaa qof walba wixii xumaan oo ka tagto wali uu ku sii soconayaan waxaan wacnay ayuu yiri shirkadii oo contractiga la galay waxayna yiraahdeen buu yiri nasiye passwordkii ama kelmadii sirta ahayd ee aad contractiga nagu la gashay hadii uu qofkan dhintay aad run sheegaysaan waxaan niri wuu yiri ma naqaano qofkii uu dhintay kelmadii passwordkana ma naqaano way diideen buu yiri waxayna yiraahdeen waxa uu haray 4 sano iyo bar la ilaaha illa allah asiga oo qabrigiisa ku jiro ayuu xumaantii sii faafinay maxaan ula jeedaa taas qof walba oo maanta xumaan faafinay ama YouTube ka ahaato ama Facebook ama internetka meelaha kale ahaato ogaaw hadii aad caawa dhimato cidna intii YouTube ka gasho ku dileed gareemayso xumaanta aad faafisay cidna intii Facebook ka tagto waxa xumaan aad faafisay cid tirtiraysa ma jirto wax walba aad shaqaysatani maalinta qiyaama kitaabkaaga ayuun baad ka helaysaa Allah subhanahu wa ta'ala markuu yiraahdo اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل كلفر كتابك وأقرسو إسحكن أذيك هلكا مالك بدو قادونتا سيدا الدراديد والله هدي إفرنتان كسو قارتو إلهي وكو جعليها أقاو إسكد الليت ترتر وحول بقو حمان أدمان تفافسي هدى الجانس هايستا هدى انت نفتك وجرتو كفى إيديسو هديك لو حائما أقاو وحائمان دونتا مالين الله سبحانه وتعالى وكهذا الشين دونا قعما هذا لغا هذا يجيركا قولا يكون مرقاتي فردونا وحول بقو حمان وآت سميس ولا ليال إله سبحانه وتعالى قفل بقوصو نقضو وأقبله الله سبحانه وتعالى نآدي يغفر حق مديس مركي أصول لابتان والله وحني تقول تلني نفتيد يأذنكم إن الله أنقن اسكدين حمان تفافنين وحلق فائدي أياني جرين خل آيض القرآن